And I found myself comparing what I thought I was going to be able to do going forward with what I once was able to do. But please take some time and focus on you instead of others. And I bet you can win those challenges and really start accomplishing so many great things. While knowing that nothing worth achieving ever comes too easy, don't ever let someone else's beliefs paralyze you from achieving those things you believe in your mind you just might be able to achieve. waxaan ku noolnahay waqti yaab leh dadka ku nool wadamada ugu hodansan dunidan ay dareemayaan inay yihiin kuwa ugu faqiirsan maxaa sababi kara arintan ma isbarbardhig baa isbarbardhigga qof kasta oo wax badan haysta dunidan aan ku noolnahay ee baraha bulshada iyo isdareensiinta inay wax ka maqan yihiin isbarbardhiggu waa tuuga koobaad ee farxadaada weligaa ma aragtay qofka labis qurxan kadibna ma istiri haddii aan dharka oo kale haysan lahaa nafsadaada maxaad dareensiisay waxaan odhan karnaa isla markaaba waxaa lumay kalsoonidii aad naftaada ku qabtay weligaa ha barbardhigin naftaada dadka kale mar weliba waxaa jiri doona qof adiga ka lacag badan mar weliba waxaa jiri doona qof adiga ka saamayn badan haddii aad goor kasta isbarbardhigto dadka kale mar kastaba waad khasaari doontaa adiga hal mid ogow cidna booskaaga ma buuxin doonto dadka kale waad ka duwan tahay cidna ha ku bigarayn ka baro balse adigu lahow waddadaada ku gaarka ah farxad la'aanta iyo niyad jabku waxay yimaadaan markaad xoogga saarto waxaadan haysan taa beddelkeed haddaynu qadarino waxa aynu haysanno oo xoogga saarno meesha aan u soconno waa waddada keliya ee ugu awoodda badan ee nooga baxo niyad jabka ama xaalad kasta oo walaac kugu abuurta sababtoo ah noloshu waxay had iyo jeer ku tuuri doontaa loolan iyo caqabado jidkaaga maba ku sii jirtaba gaar ahaan maalmahan oo korarka warbaahinta bulshada iyo muujinta filtarada cajiibka ah filtarada ka dhigaya inaad u ekaato qof aan caadi ahayn taasoo meesha ka saaraysa dhammaan waxyaabaha keenaya xanuunka midaasoo keentay in badan oo inaga mid ah ay kala garan waayaan waxa nolosha dhabta ahi ay tahay arrimuhu mar weliba uma socon doonaan sidii aad u qorshaysay tani waa nolosha dhabta ah ma ahan filim sidee baad u barbardhigi kartaa naftaada adigoo eegaya halka aad ku liidato ka soo horjeedka qof kale awoodiis taa macnaheedu ma waxay tahay inaynan bogaadin ama aanan ka baran xirfadaha dadka kale haba yaraatee ma ahan waxay si fudud uga dhigan tahay inaad iska ilaaliso isbarbardhigga oo xoogga saarto fursadaha aad adigu ku baran karto ama ku horumarin karto naftaada markaan u turjumno isbarbardhigga iyo ahaanshaha dhibanaha ficillo waxaa imaanaysa inaad isweydiiso gartay haddaba maxaan sameeyaa waxaan bilaabaynaa raadinta fursad waxbarasho waana tan sidaan u turjumi lahayn u fiirso sida aad u jeceshahay qiimaynta la'eg ayuu shaygani qalbigaaga ku leeyahay go'aanso waxaad rabto iyo sababta maxay tahay sababta aad u samaynaysid shaygan waxaad rabtaa keliya sidaad heblaayo meesha uga saari lahayd u fiirso waxay samaynayaan kadibna u kala qaybo yaryar dadka aad tusaale ka dhigan doontid kumaysan gaarin hal habeen iyo wax la mid ah meesha ay joogaan wakhti ayay ku qaadatay adna waa inaad middaada xadidaa isku dubarid waxa aad ka fiirsato adiga oo isku dayaya midba hal qayb oo ka mid ah waxa ay samaynayaan isku dubaridku ma ahane inaad isla wixii ay samaynayeen aad adna samayso maya marnaba qof ha ku bigarayn waan ku celinayaa mar kale marnaba qof ha ku bigarayn isku day hagaaji kuna celceli ku celcelin badan ayaa lagaaga baahan yahay sanad iyo ka badanba way kugu qaadan kartaa balse dulqaad lahow oo fiirso natiijooyinka aad rabto ha ahaanin qofkaas ama qofkaas oo kale adigu marnaba qofkaas oo kale ma tihid marka cidda aad tusaale ka dhigan doontid ha isku dayeen inaad isaga iyada oo kale noqotid tanna ku darso ku dayashada qof kale inay noqon karto qaabka ugu fudud ee aad ku heli karto natiijo laakiin aysan ahayn dariiqa lagu helo natiijooyinka ugu fiican waxay u badan tahay inaadan noqon karin amaba aan iraahdee aadan noqon doonin aragtidii farsamadeed ee uu lahaa Steve Jobs oo kale waa ka baran kartaa farsamooyinkiisii barashada iyo u fiirsashada howlwadeennada sare waxay noqon karaan hab fiican oo lagu dhiso xirfadahaaga marba haddii aad khabiirka tusaale ka dhigato adigoo ka fogaanaya dabinka isbarbardhigga